gooryaanka nool ee waaweyn kugu jira muxuu yahay war isbitaal tag ma lagu yiri anigu waxa gaaray heer la yiraahdo warabti kaaliniya oo adiga jiimool ugu tala gelina baxaa isbitaalka tag laakiin waxaas tusiyay dadkaasina qaldanaayeen waxaan tusiyay inuu qof walba bas bedeli karo adigana wax kaaga baahan maanta isla fikirkaasina qaatido tusi dadka ku yiraahdo biri markay ku arkaan war maxaa laqdo qof normal laqdo lagu yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن صاحبكم شعبيد باك سلو يا صاحبي الميل باجوكتان ما أنت ولا سيدان بلنك إنه هذا مقال كأنه حساب سياي سيدان اسكو بديل كرا سيدان مقال كورك هذا المي وحوقها إن أنا مقال قادم جيك بالآدم كسدح نوع كوباد وهاي إكتومورث ميسومورث يو إندومورث حتى بدل بدن أيام مقال في العلي حاجة كومنتية أي قد البان يو إن أنا نص سميه مقال كيها سيدا اسكو بديل كرا هذا نقطة حاجة عنتبة حاجة ترينينج يو حاجة ودada inta marka waxa waaye 7 saac bar la 8 saac SNF wada wanaagsan weeyaan intaasina jiiftid mar walba way fiican tahay aanu guud gal marka kuwa koobaad si uu muuqaalku noogu dheeraan kuwa koobaad waxa waaye ectomorph dadka caatada ah team caato oo aniga idin hortaagan horta waxa ahaa qofka ugu caatasan Soomaaliya masku xisaabiya 46 kiilo ah waa gaar kartaan sawirta 46 kiilo ninkii dheer arkaysan anyway waxa waaye dadku uga caadsan ku jiray maantana ma ihi ectomorph waa ka baxay waxa ku jira mesomorph adigana sidoo kale waa isbedeli kartaa hadii hore lagu yiri wax walba cunta si walba maxaa la jiray jikada dadku cuntada uga dhameysay jikada afar la saac taagan tahay cuntada inta ka marta gooryaanka nool ee waaweyn kugu jira muxuu yahay war isbitaal tag ma lagu yiri anigu waxa gaaray heer la yiraahdo warabti kaaliniya oo adiga jiimool ugu tala gelina baxaa isbitaalka tag laakiin waxaas tusiyay dadkaasina qaldanaayeen waxaan tusiyay inuu qof walba bas bedeli karo adigana wax kaaga baahan maanta isla fikirkaasina qaatido tusi dadka ku yiraahdo biri markay ku arkaan war maxaa laqdo qof normal laqdo lagu yiraahdo yes soo marka koow training ka gudgal doona insha Allah maadaama uu jirka uu ka sameeyay inuu cuntada gubo wax walba oo soo galana uu doonayo inuu dabka saaro yaana shiilo waxa muhiim ah inaad xoog saartid inaad miisaan isku dartid si ay miisaan isku dartid training number 1 waa ina qaadid culays hadii aad doonaysid inaad weynaatid qasab waa ina culays qaadid aan ku sheegay marka sida ku weynaa karisid koow waxa focus ka saartaa exercise lagu magacaabo compound exercise waxa laga wadaa bench press deadlift squat push ups iyo maxaa la jiray pull up row isagalitis xataa ku jira anyway exercise waxa la yiraahdaa compound moves exercise lagu magacaabo hadii aad sameysid qubaal oo weynaad doonta fadlan exercise marka sameynaysid ha u dhaxaysadka ka sameynaysid 6 ilaa 10 jeer toban marka gaartid miisaanka kordhi oo kugu fudud yahay 6 hadaa gaartid hatta waa kordhin kartaa yaani marka ugu yartahay 6 ka sameey nasiinadaaduna ha ahaato 3 daqiiqo 2 daqiiqo adiga 3 daqiiqo ilaa meelaha ahaato 2 daqiiqo 3 daqiiqo isaga badnaan intaas maadaama uu jirka uu cuntada gubayana fadlan yaray cardio waxa ka wada kubadda maxaa la jiray dabaasha orodka baaskiilka wax walba oo yaana cardio ah yaray maxaa yeelay jirkaagu isaga ayaa u sameeysan in uu gubo baruurta soo galayso marka ka taxadir cardio sameynaysid wadnaha uu fiican yahay caafimaadku uu fiican yahay cardio ha waa u baahan tahay laakiin isbuuci 2 jeer hal jeer way ka badan tahay maadaama aad doonaysid inaad miisaan isku dartid aniga ku soo rafaaday wadadaas i weydii sanado badan iga soo qasaareen oo aan isku bedeli waayay hadii aad doonaysid soo bedelayna fadlan muuqaal hore uga sameeyay hoos description-ka ayaan ku dhigi doonaa ee soo daawo dhiirigelin uu ku noqon doonaa wax badanna waa kuugu iftiimi doonaa insha Allah muuqaalkaas ama ku iftiimi doonaa aan gudbo marka ectomorph cuntadooda u gudbo insha Allah cuntada waxa waaye maadaama uu jirkaagu gubayo cuntada inaad cuntid as much as you can fadlan la sheekayso jikada waayo adiga waxa deyn lagaaga leeyahay jikada ha waa ogahay cunto badan waa cuntaa laakiin jirkaagu sin bedelo laakiin sirtaana ku sheegay iga dhigayso sirtu waxay tahay jirkaagu every 2 to 4 hours wuxuu gubayaa cuntada ku jirtay hadii uu cunto kale cusub waayana wuxuu sameynayaa inuu miisaankaaga ama jirkaaga inuu dib u cuno ayuu bilaabayaa hilibkaaga kale inuu dib u cuno bilaabaya
adigana aad mar walba caata aad ku taagnaatid marka gooryaan waaweyn oo nolol kuguma jiraan dhibka meeshaas ayuu ka jiraa mar walba 2 saac ilaa 4 saac marka la gaaro cunto la'aan ha ahaanin 4 saacadood isku xigta haddaad cunto la'aan ahaatid Allah ku naxariisto miisaankaaga hoos u aadaya jirkaagiina maadaama fast metabolism ahayd wuxuu bilaabayaa inuu iscuno marka waxaa isku daydaa 2 saac ilaa 4 saac walba inta u dhaxayso inaad cunto aad cuntid fadlan cun as much as you can wax cunto yani inta badan cuni kartid cun waxa muhiim ah adigu maadaama ay weynayni sida qof caataan aad tahay in aad ka dhigto cuntadaada 40% in carbohydrate ahaato 30% in ay ahaato maxaa la dhihi jiray protein 20% in uu ahaado fat cuntooyinka iyo wixii ku saabsan muuqaal kale ayaan ka sameeyay hoos ayaan ku dhigi doonaa insha Allah fadlan muuqaalka soo daawo isagana uu ku caawin doonaa carbs wuxuu yahay muuqaalan ka sameeyay isagana hoos ayaan dhigi doonaa ee soo daawo hadii uu yahay qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay calorie intake-gaaga kordhi maxaa yeelay calorieska waa wax ugu muhiimsan haddii aad doonaysid inaad isbedeshid saahan 2500 aa cunaysay ku dar 500 ilaa 700 oo maxaa la jiray calories ku kordhi markaas waxay ku saamaxaysaa in miisaankaaga kordho inta cunkaaguna uu yaala sare u sii kaco ama cuntada cunaysa aadis marka calories haddii aad garanaysid loo xisaabiyana muuqaal kale ayaan ka sameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xaggaas ayaan kaga bixi doonaa ectomorph aanu gudbo marka qolada lagu magacaabo mesomorph mesomorph ay qood nasiib badan sida hore uu sheegay muhiimadaadan adiga waxa weeye inaad lean aba isku sameeysid yaana muruq lean inaad sameeysid inaad fat ku koro marabtid inaad miisaankaaga ka dhaca doonaysid saaweed waxa u baahan tahay muruq nadiif inaad heshid sida muruq nadiif u heshid adiga waxa sameey doontaa exercise-kaaga aad u fudiyaa ma adko inaad miisaan culus inaad qaadid waa muhiim oo yaana aad isbuucaaga u qaybisid tusaale ahaan week inaad culays qaadid weekna aad sameeysid exercise lagu magacaabo resistance training oo tusaale ahaan inaad sameeysid يعني أنا reps بدن أسميسيد sidoo kale aad ku dartid heat workout ku dartid muhiim u tahay wax kula talaha marka isbuuca koobaad oo kale inaad culays aad qaadid isbuuca labaadna aad reps badan asmeysid tusaale ahaan 15 ilaa 20 asmeysid 12 15 ilaa 20 sets inaad ka sameysid maadaama adiga aad marka xoog saaraysid inaad lean iska dhigtid size-kiina u sameysid in aad maxal dhigi jiray mar nadiif u heshid size-ka waxa uu muhiim ah inaad mar walba culays qaadid marka weega koobaad culays qaad weega labaadna more reps sameey ee adiga kula tag lahaa sidoo kale 2 jeer ilaa iyo 3 jeer inaad isbuuci ka sameysid cardio ana saas u sii badnayn inaad sameysid yani 2 ilaa 3 jeer inaad cardio adiga sameysid aad muhiim kugu tahay maadaama aad doonaysid inaad fat ka nadiifisid mar walba nadiifana ay heshid soo adiga waa fududahay isbuuca culays qaadisid 2 isbuucaad reps sameynaysid inta ay kugu tag lahaa markay timaado xagga diet-ka waxa waaye inaad u kala qaybisid carbs protein iyo fat sidii aan ectomorph kharuusa shaqo kaleeto maadaama aad doonaysid inaad waxaaga balance garaysid waa inaad sameysid 35% carbs 35% protein 30% fat inaad sameysid oo yani aad ka cuntada inaad saas u qaybsanaato ayaa muhiim ah cunooyinkana sida hore idinku sheegay muuqaalan kaga hadlayaa jiro linkiga hoose ayaa soo dhigi doonaa insha Allah soo daawada wixii marka su'aalaha dheeriya mar walbana xagga hoose igu soo weydiiya hadii aan ka sii doonayna ka sii hadlo cunooyinkana waxaan ka soo hadli doonaa insha Allah aanu gudub marka qolada lagu magacaabo endomorph dad badan aan dhahay isma bedeli karo endomorph yahay mar walba jirkaaga faadu ka sameeysan yahay six pack ma yeelan karo niyadaada ka saar midaas jirkaagu adigu sida uu go'aamiso ayuu noqonaya hadii aad u go'aamiso jirkaagu inuu ahaado balbalaarka weligiis uu ahaa doona hadii aad u go'aamisid inuu ahaado pasti shabne uu noqon karaa hadii aad u go'aamisid inuu ahaado mid iska rafane dee rafkiisa ayuu ahaa doonaa mar walba marka adiga ayaa noloshaada go'aankeeda gaari karo adiga ayaa jirkaaga wax ka bedeli karo aniga maanta wax waa ka bedelay adigana wax waa ka bedeli kartaa aniga hoosan joogo koras ku soo qaaday adiga hadaad kor joogtid hoos ku soo celi if you know what I mean endomorph waa dadka badanaa miisaankooda dhaqso koraayo miisaankooduna uusan dhaqso u soo degayna ama ku rafaadayna miisaan iska dhimaa adiga goolkaaga waxa waaye inaad miisaan iska dhigtid si aad taas u samaysid muhiimadaada waa inaad training xooga saartid waa in gym-ka aan laga waayo ugu yaraan 4 maalin waa inaad gym-ka dhex joogtaa oo aad birta qaadayso culaysna qaadaysid waa in aad samaysid 10 ilaa 15 reps ugu yaraan ilaa 20 reps gaarsi way ku fiican tahay maxaa yeelay mar walba oo aad reps kordhiso waxaad gubaysaa baruurta marka waxaad sameynaysaa gym-ka imaaw culays qaad sida hore usoo sheegay compound movement sameey way ku caawin doonaan xoogna waad sameyn kartaa oo yani jirka uu jir awood loo culays uu qaadi karaa
baruurtiina waa gubaysaa jirkaagiina waa dhisanaysaa labo waa in aad ku dadaashid waxa lagu magacaabo cardio ugu yaraan waa inaad weekii 2 ilaa 3 maalin aad ka siisid ama 3 ilaa 4 maalin aad ku dadaashid cardio-gaaga cardio waxa la jeedaa waxa waaye sida hore soo qeexayba baaskiilada iyo wixii la mid ah training caadiga ah outside-ka lagu sameeyo hadad waxa la jiray push ups asameynaysid hadii asameynaysid sit ups yani exercise aan hore soo geliyay channel ku laabo laba muuqaal kadib muuqaalkii aan soo dhigay ama hoos ayaan ku dhigi doonaa muuqaalka aad ku sameyn kartid banaanka baruurta ku gubi kartid hadii aad doonaysid inaad baruurta gubta xaafada aad joogana muuqaal aan hore ugu sameeyaa jiro muuqaalkaas ayaan hoos ku dhigi doonaa insha Allah isaga la sameey insha Allah sida aan ku sheegayna raaxdo wiilaya ka caawin doona ugu yaraan 3 jeer isbuuci ah ka sameeysid cardio-ga aad u muhiim ku yahay marka xagga exercise-ka xaggaas uga baxaynaa waxaan gudbaynaa cuntada insha Allah cuntadu aad iyo aad muhiim u tahay maxaa yeelay hadii aad cuntada wax ka bedelin wiligaas bedelays waan xaqiiqdi siday tahay adii maadaama uu yahay metabolism-kaaga uu yahay slow waa inaad maxaa la jira carbs-ka yareysid carbs-ka waa waxa dib ku keenaya mar walba dad badan oo dhaho faatka waxa jiro waxa la yiraahdo keto diet oo yaana mar walba faatkaaga uu badnaa karo carbs-kaaga maxaa la jira uu yaraanayo protein-kaaga uu badnaanayo marka saa awgeed waxa sameynaysaa mar walba yaray carbs-ka waayo carbs-ka waxa dadka dib ka dhan u keeno carbs-ka cuntada ku badan tahayna waa sida baastada bariiska markaan ku dhaayo waa kan lagu kariyo badana suugada iyo waxyaabahaas waxa lagu sameeyo oo si kordhinaya maxaa la jira calories-ka ayaan la jeedaa bariiska maxaa la jiray brown rice waa isticmaali kartaa sida qamadiga kale waa isticmaali kartaa khudaarta wax ma ka dhibin waa isticmaali kartaa laakiin cunto gooniya mar walba ku tilmaamaya yani wax ku tilmaamo waxay tahay general ku tilmaamaya adiga laga doonayaa marka inaad kala hagaysid marka waxa sameynaysaa carbs-kaaga yaray 20% ka dhig sidoo kale protein-kaaga 45% ilaa iyo 40% ka dhigo sidoo kale 30% ilaa 35% wax ka dhigi kartaa faatkaaga soo saas u qiimay insha Allah taas adiga ku caawin doonto waayo jirkaaga maadaama uu yahay jir dhaqso waxa la dhigi jiray miisaanku kordhaya waana carbs-kan waxa miisaanka kordhiyo weeyaan marka insha Allah cunooyinkana I think ina hore kaga hadlay hadii aan ku gud maro waxa waaye sida kalluunka kale okay waaye digaago kale okay waaye khudaartana way ku anfici doontaa insha Allah marka muuqaalkan ma doonayo inuu dheeraado waa ogahay in ay idin gud maray oo si faahfaahsan uga hadlin hadii ay wali wax su'aalaha qabtaan jirto xagga hoose ugu reebo muuqaal aan ku sameeyo doona insha Allah marka waxaan idin leeyahay see you next muuqaal nabadgelyo